كما فرقلينته وضع معمول قبلات كي لورنتري بوتلان وهدير لي هذا معمول قبلات وقوي بريا صوماليا أنا سيدا وحنو لا يحي سيدي وهراء وشاقي على وطني بوتلان وحا لورنتري مركي بيالها ولا لها أي 1990 وضع الشيئين وكوه الشيئين إنه معمول قبلات سميسان مركي وسعون وآيي أو ديغان ندي بحي فرالة أو كلا فرقية بيليه بوتلان waxaa beelaha deegaan gobolada SSC ay go'aansadeen shirweynahoodii Khaatuma labo ee ka dhacay degmada Taleex taariikhiga ah 12 Janaayo 2012 ay ku dhawaaqeen isimada uqaasha aqoonyahanka dhalinyarada haweenka nin garboodka jaaliyadaha intaas oo gruubyada kale ee qaybaha bulshadu ka kooban tahay waxay 12 Janaayo ku dhawaaqeen kelmadihii uu go'aamiyay garaadka guud ee garaad Ali garaad Jaamac 12 iyo 45 daqiiqo 12 bisha Janaayo 2012 go'aankaas waxa in beelahaasi go'aansadeen inay maamul goboleed dhistaan maamul goboleedkaas oo la baxay Khaatuma State of Somalia waxa loo doortay madaxweynayaal saddex oo aan dawladaha Afrikaanka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya midna aysan lahayn ilaa maalinka maanta aynu joogno waxa maamulkaas faroole madaxda ka yahay si dadban iyo si toos ah noogu hayay fargelin dulqaad baan u lahayn samir baan u lahayn walaalnimada derisnimada iyo waliba beelaha labada maamul ka soo jeedaan waxa ay wadaagaan baan tixgelinayna waad ogeydeen oo wuxuu noo diiday garoonadii ahaa hantida Soomaaliyeed oo ummadda ka dhaxeeyay wuxuu noo diiday wadooyinkii Soomaaliyeed ee gobolada isku xidhayay ee hantida Soomaaliyeed ahaa wuxuu noo diiday magaalooyinkaas beelahaana iyo Soomaali ahaan labadaba wax ku lahayn ama ku leenahay oo ah hanti Soomaaliyeed intaas oo dhan markii uu faroole diiday dulqaad baan u lahayn garoonada iyo dekadaha iyo laamigu intuba waa hanti Soomaaliyeed nagama xigo laakiin dulqaad baan u lahayn waxaanu tixgelinaynaa wada dhalashada beelahaas waxaanu islahayn wax yar oo kooban baa u hadhay faroole iyo gruubkiisa hal mid noqonina waxay socoto markii uu jawaabo adag heli waayay waanu mar walba tanaasul sameeyay shacabka walaalaha iyaga waqooyi bari degan inuu ciidamo military keeno soonkan maamul goboleedka Khaatuma State oo waliba gudaha u soo galo waxaan halkan uga baaqaynaa isimada uqaasha aqoonyahanka nin garboodka beelaha ma jeerteen waxaanu leenahay tallaabada militariga ah ee faragelinta qaawan ah ee gardarrada ah haddii aydan ka noqon waxaanu bixinaynaa jawaabta la mid ah waxaanu u tanaasulaynay waxay ahayd shacabka Puntland waxaanu soo dhawaynaynay oo walaaltinimada naga dhaxaysa iyo dirisnimada u adkeenaynay idinkay ahayd haddaydan arrintaa wax ka qaban oo faragelinta oo wada faroole iyo gruubkiis aydan wax ka tarin runtii ma laaban doona faraha waxaan uga taayintaan kaga gudbayaa waxaanu dhowraynaa 24 saac soo socda isimada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka ku sugan deegaanada gobolada bari ee Puntland jawaabta mid ka dambaysa naguma harin inta taas baan ku dhaafayaa dhinaca kale haddaanu nahay sidii Cali Wadani u sheegay beelaha ku dhaqan Khaatuma State of Somalia ee maamulkan ka soo jeeda isma hayno ama aad ma gaarisa isma hayno heshiis baan ku nahay maamul goboleedkan waanu ka wada tashanay waanu ku wada soconaa halkan waxaan runtii uga mahadcelinayaa dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed mudane madaxweyne sidaad la socotid amaanu ku sheegaynaba fargelinta qaawan ee maamul goboleedka Khaatuma fargelinta qaawan ee maamulka ma jeerteeniya uu ku hayo deegaanada Khaatuma
waxaanu kaa codsanaynaa kuna soo jeedinaynaa jawaabtaada cad ee dhexdhexaadnimada inaad ka geysatid sidoo kale dawladaha dariska ee daneeya Soomaaliya ee ugu horeysa dawladda Itoobiya Kenya Uganda ama dawlad goboleedka igad la yiraahdo AU-da Jaamacatul Arab intaba waxaanu soo jeedinaynaa in ay ka eegaan arrimaha wada maamulka Faroole oo lid ku ah wada hadalladii Soomaaliya u socday shirweynaha ka socda Muqdisho iyo xaaladda kala guurka ee Soomaaliya intaba caqabad ku yahay waxaan u aragnaa inay marmarsiyo doon tahay inta aanu jawaab ka helayno beesha caalamka annagu waxaanu mar walba sugaynaa oo ilaalinayna nabadgelyada qodobkaana intaas baan ku dhaafayaa runtii markaan u soo gandadego kastamkan magaalada Tukaraq kastamkan xoog kumaanaan qabsan muddada 6 bilood ee maamulkan khaatumaystada Soomaaliya uu jiray uma aanan jeedin gacan ku hayayaashii waad arkayseen booliiskii qaybta gobolka Sool oo deegaanka ku sugan shaqaalihii kastamiska ama maaliyadda Puntland u shaqayn jiray markii hore iyo shacabka reer Tukaraqeedba iyaga noo yeeray oo nagu wareejiyay kastamka xabadi kama dhicin xumaani kama dhicin wax dhibaato ah oo meesha la gala kulmay ma jirto hadeerna shaqaalihii iyo bilayskii iyo kuwii waliba cashuuraha ilaalin jiray looran jiray ilaalada cashuur ciidanka ilaalada cashuuraha sidii bay gacanta ugu hayaan idna u mari mayno idna ka yeeli mayno idna ka ogolaan mayno inay gudaha khaatumo maamul kale oo custom iyo control dhigto ma ka yeelayno runtii ma ka yeelayno sidaa darteed waxaanu leenahay cid kastoo arrintaa ku naayiloonaysa ama ku riyoonayso ka tanaasub intaas baan ku dhaafaynaa halkan waxaan hambaliyo iyo salaan iyo taageero uga dirayaa dhammaan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka khaatumaysay Soomaaliya meel kastoo ay joogaan sidoo kale waxaan hambaliyo iyo salaan uga dirayaa shacabweynaha reer Khaatumo iyo shacabka Soomaaliyeed intaba intaas baan maanta shirkan jira ku soo gabagabeynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa dhowr qodob inaan ka hadlo halkan aniga aan cilmi warsame shirkad talaxna al Mareykan laga bedelo leeyahay aan wadada dhowrka qodob marka ugu horeysa waxaan salaamayaa Khaatumo waxa la yiraahdaa beesha talax ku shirtay Khaatumo waagi hore SSC bay ahayd SSC waxay ahayd Soomaaliya sanadii cayn dad aan qabiilka ahayn baa soo biiray dabadda Khaatumo isu Khaatumo waan salaamayaa salaanka bacdi wax ka hadlayaa gobolada bari baan ka hadlayaa gobolada bari dadkeeda walaalaan nahay waxaanu nahay dad wada dhashay laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay haddii ninku gardaran yahay in la qabto waxa weeye labada nin meesha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ka aad baa loogu eegayaa xumaanta waliba loogu eegayaa madaxweynaha xumaanta waxa weeye iska nasiib weeye inuu madaxweyne noqdo waxa weeye xitaa waxa laga waayay rag iska daayay dumar 10 ama 5 oo intay warbaahinta yimaadaan yiraahdaa beesha waa laga gadanaya Khaatumo hadayna waxba taran hal nabadgelyo baa laga laayay hanooga noqdeen ciidamada jooga dalka iyaga hanooga noqdeen dalkoodii ha tageen waxa weeye dalka waan kala leenahay istiloo garu wada galana doonay dib kale ayuu ninkaas wadaa annagu waanu heshiinaynaa haddaan Khaatumo nahay in عشرة سوا خاتمه أو كخسبيه نكسر خاتميه هاي نكسر بعضي وأنه هشين دون لكن إذا هشين منه حديث قالوا